nin gacan ku dhiigla ah oo bini aadan lagu tilmaami karin oo maxaan ku rabaaye wuxuu yahaba aan la garanaynin walaashay saas adduunka korkeeda ugu cadaabe horta ilaahay waxaan uga rajeynaa marka hore ayada inuu ilaahay jannatul firdawsna ugu bishaareeyo asagana adduun iyo aakhiraba inuu ilaahay ku cadaabo mideeda kaleeta annaga wax noo imaaday ilaa haddeertaan oo maxaan ku rabaa faamilkiisa ha noqoto ama maxaan ku rabaa wax ayaga ka socoto ha noqoto ilaa agtina wax noo imaada mara oo na qiimeeyo oo na qadariye dadka shalay asaga markii gabadha lagu meherinayo mas-uulka ka ahaayeen la socdeen way ka wada dhuunteen nooma imaanin taleefanada way daysadeen ma fahanteen annaga waxaan rabnaa madaxda dalka Soomaaliyeed ugu waaweyn xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka banaadir xuquuqul insaanka kulli waxaan ka codsanaynaa ninkaas in cadaaladda loo soo istaajiyo because hadda hal wiil ka soo wareegtay jimciisa loo gala jimciisa maanta waa oo meeshaan geerida hadda aan u taaganahay wax cadaalad iyo wax waa la soo qabtay la dhahaayana ma hayno abal waaba la soo qabtay aaba la dhihi jira waa la laasay baa lagu hayaa afhayeenka xalay aan daawanay dhacdo ka dhacday dharkiina gabar ninkeeda ku guba bis oo hadalkiisa uu ku soo koobay aabaha reerka wuxuu sheegay in ninka dhibka geystay iyo taliska ugu sareeyay booliska wax isku yihiin saawiyada la qarin waa isku yihiin sax waaye saas darteeda waxa weeye loogu shaqeyn waaye wax loogu qaban waaye laakiin ilaahay subxaanahu qaadir kama qarsoono laakiin dadka oo wadankan u dhaartay waxaan leenahay waa idin taala dambiga mid idinka idin yaal waaye soo faragashta afhayeenkan xalay soo hadlaay waa maqlaay si qurux badan hatta